وايدي سلام الصومالية سلام سري dadkii aan ka dhashay ummadayda liiga beeray وايدي wada salaamisa u dhadhantiin maanta mulkii waxay rabtaa inay nila wadaagto arrin aad ka helaysiin insha Allah I hope inaad bal wax iga faa'iidaysatiin haddaad tihiin ummadayda Soomaaliyeed maadaama Ilaahay uu noo soo saaray aalad aan ku hadli karno oo waxaan rabno aan ku gudbin karno marka laakiin rag badan aad jiro aniga aragtidayda iyo cawraba ii arko oo dhibsanayo laakiin maasha alxamdulillah ya leenahay alxamdulillah in aaladan Ilaahay uu soo saaray wax walba aan ka sheegi karno hadaan nahay dumar hadalka guntiisa muhiimka u galaya waxaan rabaa Soomaaliyeed I'm serious wallahi waxaan rabaa inaan la hadlo waxaan u jeedaa buuq fara badan oo ka socdo dhinaca bulshada dhinaca qoysaska dadkii isfahmi la qoysaskii burburaya marka waxaan dadkayga waxaan rabaa inaan la wadaago arin aan ku najaxay arin aan ku guuleystay shan arimood weeyaan gabar kasto oo aan ila mid ah hadii ku dhaqaaqdo shantan arimood waxaan ogahay 100% boqolkiiba boqol inay guurkeeda iyo gurigeeda ay ku guuleysanayso ninkeedana uu ka dambeeyo waa yaabatihiin I know waxa leedahay naagtan iyo ninkan caruurta waa weel leh sida isku dhacdacsanayo maxay ku akhrisay ma sixirtay maxay ku sameysay I know waa isweydiinaysaa gabadha way sixirtay ninka waa dhaadaan ninka waa dayuus muxuu idab ugu yeeli la yahay anaa idin sheegayo Soomaali anaa idin sheegayo ninkan wuxuu sidan u yahay ma fahantay waxa weeye shan arimood ta ugu horeyso waxa weeye is-aaminaada labada qof waa inay is-aaminaan oo ninkaagana aad aamintid hadduu 10 sano kaa maqan yahay naagtaadana aad aamintid hadday 10 sano ay kaa maqan tahay meesha rabto lugta dhigi karto meesha rabo lugta dhigi karo problemada ugu waaweyn oo qoysaska ku dumaan ragga aad iyo aad u maseer badan ragga Soomaaliyeed qofna hadduu maseer badan yahay waxa iska maseerayo guriga uu dumaya number 2 waxa weeye oo ugu muhiimsan waxa weeye respectiga yani ninkaaga waa inaad respect siisid adna naagtaada waa inaad xaq dhowrto respect siisid haddii labadiina dhexdiina xaq dhowr uu yaalo iyo kala dambeyn guriga uu waaraya ta ugu muhiimsan Soomaaliyeed mataqaanaan oo yani lisku haysto ninkiina la leeyahay dalaq dam naagtiina la leeyahay ma aragtay ma ogina isdaba mariyo naagtiina la leeyahay dalaq dam ninkiina waxa la leeyahay briq waxa weeye waa sariirta taas way baahida ugu weyn runtii baahida ugu weyn oo la iskugu iimaanay qoys loo dhisanayo waa dhinaca way ani hadii kala guriga hooyaday kama aanan waynan cunto laakiin ninkan waxaan gurigan isna baahiya jirto oo ii raba naag ahaan anna baahiya jirto aan u rabo nin ahaan marka taas waa muhiim ta afraad waxa weeye kan oo ahaan nin naagta kaliya waa inay cunto macaan ay samaysaa ninka xataa waa inuu ku noqdaa way aan waxaan u baahanahay maalin aan nasto maalin aan ma aragtay cunto macaan lii soo dhigo labada dhinacba waa inay cunto karin karaan laakiin yani isku xilsaaraan cuntadooda hadday ninka noqoto naagtis maalintii daalan tahay isaga uu caawiyo naagtana hadday markeeda ay tahay yani waqtigeeda ay tahay iyadana cunto macaan ay kariso oo labada qof ay ku noqdaan taas waa ta afraad ta shanaadna waa maxay sheega maxaad oran kartiin ta shanaad ugu dambeysa ta ugu dambeysa maxay ahayd Soomaalida inay ii sheegaan jeclaan la ta ugu dambeysa oo shanaad conversation in labada qof ay yani ay wada hadli karaan yani hadalkan uu ku dhisan yahay hadal xaq dhowr ah marka ninkaaga aad hor fadhidid si aqliyana aad ula hadli kartid wax u weydiisan kartid wax aad uga dhaadhicin kartid taasna waxay ku timaadaa Soomaaliyeed oo naga maqan
waa educationka waa aqoonta aqoon la-aan waa iftiin la-aan waayo nin hadduu ku qabo oo aqoon leh mise naag oo aqoon leh labadiina wada hadlaysa isma fahmi kartiin waayo waa yani waxa jira naaqus laakiin xataa waxa jiro marmar qaarkood dad wax bartay laakiin basic ahaan background ahaan aan u dhisnayn oo buuq iyo dhib iyo dagaal iyo caay kusoo koray labadaa xataa isma fahmi karaan si kasta ay aqoon u leeyihiin marka waa very important runtii shantan arrimood aan inii sheegay يعني إن كتحدرتين رنتي والله إنه صندوق شرين صومالي أنا ولا شينا ملكي وحيالها أن كوجو ليستي رنتي أو جورجي جانا دوري لو اتصل وكل السنة هاي واشنطن شنطن قبلها هذا إسكجيتشيان نلاشى بين سومالي يراهدان بين إنه والله سو حرقليات قفكا رنا والله دقة تا هديت ماذا سيدان أمبا بأسناني سيدان إسكو دبي إرسلنا سيدان إسكو عيننا سيدان بوليس إسكو وعينا سيدان ما أركتي دبعت علمه اللي ضيعيا وأشيدان هذا يعني كوي سومالي أطلع هاي مانتا يعني وتكفر حيسان رنتي نلشودا آد بنوغ يريهين هدي جرانا waxaa lagu dagaalamaa in la burburiyo waxaa lagu dagaalamaa in ma aragta ninka tushush lagu furo waxaa lagu dagaalamaa in naagta tushush lagu furo taas waxa weeye waa xaasidnimana Soomaaliya wax ay noo tarisay wallahi inaysan jirin oo bilaahiya ta ani aan ku fiicanahay noloshayda ee ku socoto aad u jeedin quruxda iga muuqata oo noloshaas ma sha Allah aan ku jiro qof waxaan ahay qalbigaas alxamdulillah ka ah qof walbana la jecel wanaaga qof walba maanta dad i xumaysid inta yar waad i caynaysid inta yar aad i xumaynaysid ayaan xumaani laakiin bir waxba kuma qabi gabar walba ana ila mid ahna oo Soomaaliyeed waxaan jeclaan lahaa in qalbigan ayaa laga socdaaye qalbigan ka socda Soomaaliyeed gabdho qalbigan ka soo qalbigan nadiif ka dhiga nadiif hadal kuma jiri karo waan daalay markaan iraahdo ani dadka hadalka badan miihi markaan iraahdo dadkayga wax u sheeg waan daalaya inii macanaad waan jeclahay